ma ahan wax hadda cusub isku soo dhawaashaha laba shakhsi oo laga garanayo baraha bulshada sidee ayaase loo hadalhayaa xidhiirka jacayl ee Shiine Culey iyo Najuu Caraale. haddii aad doonayso inaad wax badan ka ogaato waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto una share garayso asxaabtaada si aan u helno saaxiibo adiga oo kale ah. kun jeer ayaad ku mahadsan tahay daawashadaada. Najuu Caraale oo ah youtuberad waa mid mar walba shaatiga la gashata kuwa ugu caansan barta YouTube-ka dhanka Soomaalida sidee u shidato maqaayadeeda gaarka ah ama YouTube-keeda waxaana ay marar badan dood iyo dagaal ka dhalisay bartamaha dadka ugu caansan YouTube-ka kadib xiriirada ay kaamirada horteeda ku muujisay oo qaarkood ugu dambeyn barankii loo fasiray labadan inuu caanka ah gabadha inay wada shukaansadaan iska dhaafay inay isku arkaan baba khalad ahay aniga iyo Dirisle abadan wax maana ma dhaxyaan Messi oo gabar ay isku haystaan ama la isku xanto intay ka guurtay dhuur cad Cristiano Ronaldo oo gashay aniga Dirisle isguursan rabnaa gabadhaas maxay Messi ula hartay ma weysan toogan aniga iyo CK maxaa naga dhaxeeya yes waxa naga dhaxeeya xiriir baa naga dhaxeeya waa qof diracada waa tahay Najuu Caraale oo kamid ah qurba joogta ku waalan isticmaalada YouTube-ka ama lacag ka sameynta muuqaalada la soo geliyo bartan ayaa bilowga xirfadeeda waxa aad loogu bartay la joogista xiddiga raacashada badan marka loo eego xindaabka YouTube-ka dhanka Soomaalida ee Dirisle Cabdi kaasoo ay waqti ka soo garab ciyaartay si weyn ay caan ugu noqotay marka la eego saameyntii ay lahayd ka hor intaysan isaga muuqaalo kala soo muuqan Najuu Caraale fadlan subscribe iyo like taba hanagala bakhaylina waxaana Dirisle uu sheegay in xitaa isagoo aan gabadhan aqoon u lahayn dartiisa diyaaradu soo raacday si ay YouTube-keeda u kala kacsato Najuu waqti yar kadib waxay heshiis la seexatay Kinga CK kaasoo isaguna lagu xantii inuu yahay Ronaldaha barta YouTube-ka waqtigan Messi oo gabar ay isku haystaan ama la isku xanto intay ka guurtay dhuur cad Cristiano Ronaldo oo gashay aniga iyo CK maxaa naga dhaxeeya yes waxa naga dhaxeeya xiriir baa naga dhaxeeya marka aniga Najuu Caraale inaan jag isku noqono run way inkastoo dadka qaar ay heysiisa ku tilmaamaan kuwa laga fiican yahay dhanka muuqaalada haddana xiriirkii iyo jaceylkii lagu shaaciyay baraha bulshada ee u dhaxeeya CK iyo Najuu Caraale waxa uu noqday mid baranki ah oo lagu maran habaabinaya daawadayaasha si loo gaaro ujeeddo ah subscribe helida iyo waliba lacag sameynta bartaasi waxaan isku raacnay in sheekadan shacabka ay u noqon doonto madadaalo ay u noqon doonto xiiso wararta tan film maaha brankna taanu branka noocaas waa iga xigmad badan yahay mid kale dhalinyaro hadaa wixii brank ka dhigtaan maanta kana jeclaada waa brank maanta maxaa ku yiraahdaa tanaan jeclaada waa brank oo soo celceliso to waxa la yiri runta beentaada runta dama u daran tahay berina Najuu marka ki maxaa ku yiraahdaa iskuursan lahaydeen oo ilaahay calaf kugu daraysashaan tashiina soo kugu soo hambalyeynaya soo oran maayo waa beedi baalasha lahaa waa beenta wada jirtay balse ka hor inta aan la shaacin sax ahaanshiyaha jaceylka u dhaxeeya Najuu Caraale iyo Kinga CK oo ay ka soo hadlaan YouTuber badan waxa afka furta Shiine Culey oo Najuu ku tilmaamay mid danteeda oo kaliya ka fikirta isla markaana doonaysa kaliya inay subscribe hesho xilli ay dagaal ka dhex xurinayso labada wiil ee barta YouTube-ka ku soo gala magacyada Dirisle Cabdi iyo Kinga CK waxaana musharaxa uu shilinku reebay Shiine Culey uu muujiyay xilligaasi fikirka gabadhan subscribe raadiska ah ee wiil walba oo ay maqaayadu u shidanta ku qabsataa baaxilihii uu ka sugayay inta kala dhaqaaqday baa nin cadowgiisa ah u jabis ninka inta tiirka taagtay baa tiri CK oo toogo CK maxay u gashay CK sidii la mid ah gabadhu kan 70 kuma ka soo heshay 70 kuma filaan ma oran war ninkani waa ku soo qaaday wixii inta ka dambeeya adigu gaarigaaga isku sii wad waxay istiri 3 bilood baa 70 ku heshay yaa nina macaaba waa soo heshay oo soo jabsatay mid kale raadi 70 kale kaga darsato CK isku qaad aniga iyo CK maxaa naga dhaxeeya yes waxa naga dhaxeeya xiriir baa naga dhaxeeya waa qof diracada waa tahay maantaba sheekada waxay ahayd brank aniga been qaan gaartay oo aan dhar loo gelin iyadoo qaawan dadka sanka loo gelinayo beela ahayd Najuu Caraale waxa leeyahay war CK ba hadda ku jirtay maanday markaa ka soo dhamaato aniga hay soo marin balse maanta
waa isaga markiisa. sheekadu waa ay dhaafteen muuqaal la soo duubo si loo kala kiciyo labada YouTuber, balse gabadhan maqaayadii shidanba ka cuntaysa ayaa la qoobka ciyaarta Shiine Coley, weliba hees jecel ayay iska duubeen, taasi oo keentay hadalhayn badan oo dhanka YouTube-ka ah. xiddigan afmaalka ah ee 40 jirka lagu qiyaaso ayaa maalmo sii horreeyay waxa uu bartanka ka galay fadeexa shaxaad oo aan ku hadla ah, laakiin waqtiyadii adkaa iyo faafinta ceebtaasi waxa uu ku asturay gabadhan ciyaar walba baasata si ay subscribe u hesho. lama oga halka ay sheekadan ku dambayn doonto, balse waa laba mid oo kaliya si ay YouTube-ka u kala kiciyaan ama xitaa si ay iyaguna iskula kala kiciyaan. waxaan kala jeedaa in iyaga xitaa isku qabsadaan. adigu sidee kula tahay? haddii aad muuqaalkan daawatayna waxaan ku xasuusinaynaa inaad like saarto muuqaalkan si saaxiibo badan ay u daawadaan, una sheer gari asxaabtaada si aan u helo saaxiib adiga oo kale wanaagsan. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafinho. aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.